Kacdoon looga soo horjeedo maamulka Somaliland oo ka billowday magaalada Burco yay yihiin dadka kacdoonka sameynaya maxay tahay sababta ay u kaceen dadkan Muuse Biixi maxay ku tilmaameen qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kaga hadli doonaa warbixintan ee daawada muuqaalka sheergaree oo la wadaag asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale page-kana follow garee mahadsanid damiirka nool isma qariyo qofka waxa uu yahayna waxa laga gartaa maalinta heelka loo baahan yahay oo ay Soomaalidu sheegto in la kala barto dadka kuwooda wanaaga u saaxiibka ah iyo kuwa iska nool ee aan la tirsan dhalinyarada reer Somaliland ee ku nool magaalada Burco oo ka careysan go'aanka madaxda maamulkaasi ee dad Soomaaliyeed qaab heebsooc ah gobolka Sool ugu soo musaafuriyeen dad ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa iyaga oo careysan si adag waxay ula hadleen madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi waxay qaadan waayeen dulmiga loola kacay walaalahood ee isku dhiiga dhaqanka diinta iyo midabka yihiin ee wada noolaayeen muddada dheer ee aan waxba galabsan balse loogu awood sheeganayo shaatiga maamul ee la xiran yahay waxaa soo bixiyay oo isla qari kari waayeen goobtana lagu gartaa inaysan ka gamban u heelinta hooyooyinka xaamilada ah kuwa umusha ah caruurta aan socodkaba gaarin waayeelka socodka gabay kuwa naafada ah ee aan socon karin ee lagu tagrifalay gaadiidkana laga soo buuxiyay iyadoo la heebsoocayo wiilkan oo ka mid ah dhalinyarada sida xun ugu carooday xadgudubka ula kacay sharafka iyo hantida dadka qasabka lagu barakiciyay ayaa si adag ula hadlay Muuse Biixi waxa uu si dhiirnaana u sheegay in cid xiri karta asiga aysan jirin dadka koonfur ka soo jeedan ay geenayaan halkaasi qof ay marti ugu yihiin aanay jirin oo Somaliland ay tahay dhul Soomaaliyeed Muuse Biixi abdi maalintu dalka yimi ku shilmeen siilaanyo hortiin hortaan ninka ma baranba siilaanyo dhowr sharaf naga soo gudbiyay xaflad iyo wax ma ninka hortaan ku bartay waa qodobka labaad tii bila aadan markaad wax jeebkaaga soo galaan qof miskiin ah oo isagii bariiskiisa la yaabano halkiisii uu joog lahaa duu xiliga qofkani uu kaaga maqnaado waxa la dadka ku tacdiin ilaahay baa ku arko aakhira lagu geeyay kafan cad baa waxaan ka raacaysay muusow sida tahay dugaagii marbar ruux eriyanayo taanaga kula yaabanayne anaga cidna xidhmaysay waxaan ku sheegaynaa ayar gacali dadka ku gafin meeshan anaga ku dhiibinay sanad baa ku haray inta anaga dadka ku soo guraynaba tan marka wadan Soomaaliyeed shahaadadu sitee ku dhafo Muuse Biixi Soomaali baa ku qoran tii fakarkan u salaamsay dadka ku caawantay ayar gacali bila lacagta lagu wartay anaga waxaan maamulka Somaliland ayaa dad Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Laascaanood ugu soo musaafiriyay qaab heebsooc ah falkaas oo meel ku dhac ku ah islaamnimada Soomaalinimada dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo sharciyada caalamiga ah raafkan ay sameeyeen Somaliland ayaa waxa uu ka careysiiyay dadka Soomaaliyeed kuwooda damiirka iyo dadnimada u saaxiibka ah waxayna ku dhiiriyeen siyaabo kala duwan balse Somaliland kuma tusaale qaadanay weli dad kale ay ugu hanjabaysaa inay raafayaan haddaba daawada Somaliland ictiraaf ma ku helaysaa raafka shacabka masaakiinta ah